واتهاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا شرفتا leh kusoo dhawaada meel walba adduunka daafiis kaga sugan tihiin maanta waxaa rabaa muuqaalkan sida ciwaanka teetalka ama tamaleedka ka soo aragteen maalmahan waxaan niga soo gudbin jirnay ogeedeen adduunyadiina iyo aakhiradiina wax ay anfacay laakiin inkastoo aan ku mashquulnay dagaalka social media maanta waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa aan diiradda ku saarmi doonaa 3 calaamad aad ku garan karto dadka si xun ku nacab 3 calaamad oo aan ku garan karto sida dadka ku nacab yihiin marka muuqaalka inta bilaabno aan 3 calaamad nii sheegin waxaa rabaa marka degniin inaan siiyo degniintaas oo ku aadan qofka hadii hal calaamad ku aragtid oo iska day qofkan uu nacab yahay hal calaamad ku aragtid waa degniina ka siila qofka inuu maskaxda gashan adig wax u qaadataa cilmi ahaan u qaado calaamada koowaad qofka marka aad adiga sheekeynaysid oo ka jijeysto qofka astaamaha ugu hore waxaa adiga waa sheekeynaysaa oo ka jijeysanaa qofkaas calaamadaas ay muujinaysaa qofkaas inuu wada hadalkaada uu jecleen oo ku nacban yahay calaamada labaad ee muujinaysa qofka inuu ku nacab yahay waxay tahay qofka oo mar walba ku dalaacaya dalaacin waxa ka wada qofka oo mar walba ku dacaayay waxa ka wada waxa aad sameeyno ku sheeg qofkan waxa uu sameeyaa qofka mar walba inuu ku dacaayaday waa waxyaabaha astaamaha ugu weyn ee lagu arko qofka inuu ku nacab yahay ala astaanta ugu dambayso ee saddexaad ee lagu arko qofka inuu ku nacab yahay ayaa waxay tahay qofka oo mar walba marka aad kaftan sheegtid aan ku quslin qofka marka aad kaftamaysid oo sheekeynaysid aan ku quslin saddexdaas calaamad hadii aad qof adiga saaxiibtiina ama qofka ku aragtid ugu badnaan wuxuu qofkaas u badan yahay inuu ku nacab yahay laakiin hadii hal astaamad ku aragtay oo iska day qofka uu nacban yahay degniina ka siinaya taasna cilmi aan u qaado qofkan hore uu iska nacban yahay oo ku dhihin muuqaalkaas bartaas ayaan ku soo gagabeyn lahaa waxa ka codsanaa inaa muuqaalkan like u saaritid sina share gareysid kuma tagayaan wax fikrad ah ku soo qoratid fikradaadu way banaantahay waana dhageysanaynaa qofka calaamada aad ka aragtid halka calaamada qofka ka aragtid kuma tago igu soo wadaagi kartaa waa mahadsan tahay video noo saar youtube-kana noo subscribe insha Allah mardo waxaan gaari doonaa insha Allah duu Ilaahay idmo halkee ayaa gaarina subscribe-kuna dadaal waa mahadsan